asalaamu calaykum kusoo dhowaada dadaal academy oo laga barta luuqadda englishka weliba qoab bilaasha casharkeenii koobaad ee ahaa sheekooyinka waxaan soo wadnaa sheekooyin aada iyo aada ku xiiso gelin doona fadlan nagu soo biir oo sii shargaree sina gaadhsii asxaabta u baahan waa useful story sheeko aada u xiiso badan weeyaan sheeko aada u muhiima weeyaan gabadhan ayaa hadashay I have a friend waxaan lahaa saaxiib who saaxiibkaasoo always very emotional aada dareenkiisu u kacsan yahay every time waqti kastoo I see her aan arko iyada she's either sad or happy waa labadaa miduun ama way faraxsan tahay way cadhaysan tahay sad waa caradii or happy or she is happy ama way faraxsan tahay but laakiin when she wakes up in the morning markay kacdo subaxii she always grumpy way xanaaqsantahay aada ayay u xanaaqdaa markay aroortii kacdo she always grumpy badanaa way xanaaqsan tahay and when she goes to school markay iskuulka tegaysana she always tired way daalan tahay markay iskuulka tegaysana way daalan tahay markay kacaysana way xanaaqsan tahay when if she comes over to my house markastoo she comes over to my house ay gurigayga igu timaaday leedahay she always mad about something waxbay ku waalan tahay gabadhani waxbay ku waalan tahay something she always mad about something waxbay ku waalan tahay one time waqti she did badly on taasi ay si xun uga shaqaysay imtixaankii tijaabada ahaa she was angry way cadhootay she was so angry aad bay u cadhootay that she was so angry that aad bay uga cadhootay imtixaankaay sida xun uga shaqaysay aad bay uga cadhootay she jumped up kor bay u booday up and down kor iyo hoos bay u boodbooday and screamed waanay qayliday the teacher macalinkiibaa told her u sheegay to sit down inay fadhiisato she was very impressed way xishootay aada bay iskula xishootay marka la yidhi fadhiiso fadhiiso waxba kuma qaylaysid marka la yidhi macalinkii dee la hadlay way xishootay because maxaa yeelay everyone qof kastaba was looking at her iyada ayuu fiirinayay I have learned marka qofkan soo tabinayay sheekada ayay yidhi I have learned waxaan ka bartay I have learned a lot about waxaan ka bartay wax badan oo ku saabsan lot about myself wax badan oo naftayda ku saabsan baan ka bartay by watching other people markay dadka kale soo eegayaan when marka I see aan arko how sida foolish people dadka nacsiyada look when they are angry ay ku eegayaan markaad cadhootid one marka I see aan arko how foolish people look sida dadka nacsida kuu soo eegayaan siday u egyihiin cafwan siday u egyihiin dadka nacsiyada when they angry markay cadhoodaan I promise myself naftayda waxaan kula balamay that will have self control inaan lahaado isxakamayn and not lose my temper aanan cadhadayda muujin I am learning patient waxaan bartay dulqaad I am learning waxaan bartay patience dulqaad casharkeeni maanta intaas ayuu ku egyahay waynoo casharka xiga fadlan hala sii faafiyo